maamulka gobolka Gabiley ayaa kormeer ku soo maray goobii khasaaraha soo gaarsiiyay roobkii shalay gelinkii dambe ka daay gudaha magaaladani Gabiley goobahaasi oo kamid ahaayeen taawarkii shirkadda isgaarsiinta Telesom ee xaafadda Laag Barako ee magaaladani Gabiley dugsiga hoose dhexe New Gabiley oo laba fasal oo kamid ah dugsigaasi ka qaaday jingada iyo dooxya ka dilaacay xaafadda Edin May oo hakiyay isku socodka xaafadaasi markii ay maamulka gobolka Gabiley gaadheen dugsiga New Gabiley ayaa waxa ka warbixiyay khasaaraha soo gaaray dugsigaasi maamulaha dugsiga sidoo kale maamulaha dugsiga New Gabiley waxa uu ka deeriyay xaaladda dugsigaasi oo uu sheegay in dhismaha iskuulkani aan lagu kalsoonaan karin yahayna dhisme aad u jilicsan isla markaasina halistiisa leh haddaan sida ugu dhaqsaha badan loo soo gaadhin dugsigani sidoo kale maamulaha dugsiga New Gabiley isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu baaq u diray wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uguna baaqay in si degdeg ah loo soo gaadho iskuulka New Gabiley isla markaasina loo dayactiro qaybaha uu ka kooban yahay iskuulkani oo dayactir baahsan ka muuqdo isagoo ka hadlaya arrimahaasi waxa hadaladiisi kamid ahaa laakiin waxa qasaar soo gaaray labada fasal ee sabanadu ay ku dhiganayeen fasalada toddobaad oo burburay labada fasal waxaad moodaa labadii fasal ee ugu dambeeyay iskuulka waxa la dhisay 1999 baa la dhisay afarta fasal baa sanad ka dambeeyay ee dhinaca bariga oo la dhisay sanadkii 2000 laakiin fasaladan waxa la dhisay 2014 كلي مقالها وحا كير موقدي جلعسنان حق دسمها مربان ugu yeed iskuulka laftiisa dhamaan wuxuu u baahan yahay dayactir ballaaran buu baahayo 20 sano oo dhisnaa waa dhul beereed aad iyo aad u jilacsan oo nugul fasalada qaar kood baa aboor ka soo baxayo dundumooyin ku dhaxsamaysmaan كلي حق وزارة وحبرشة دور شر أد بان وقصوا هذا القاضي دور كاي وزارة وحبرشة ولا ذي لفتيده أد بعد مداين وقابين يعني إن وزارة وحبرشة لفتيده أي قيب لحد لك قاتم بلوبة هي تفسير دوريها أنتي إمجا دولة عصب مصبي حاجرتي وسيرك وحبرشة باغبان أنا قلت أنا باغ صدق شركة الله لكن هذه أي نقطة إنه اللي دقيستون تفيده dhibaatadeedii leedahay waxa iskuulkan iskuul ballaaran weeyaa 100 arday oo maanta dhigta magaalada gudaheedina uu ku yaalaa bilaadeer kaasi oo yahay 20 ka sano waxa weeye hadimo badan buu nagu hayaa waxaan baaq u dirayaa madaxda gobolka madaxda qaranka jaaliyada wadanka intaba waxaan aad iyo aad baaq ugu dirayaa dhamaantood dalka Soomaaliland oo dhan inuu iskuulkan New Gabiley loo sameeyo waxaan sidoo kale waxa halkaasi hadalada iska daba maray gudoomiyaha waxbarashada gobolka Gabiley iyo barasaabka gobolka Gabiley waxayna yiraahdeen nimcadii shalay daaday nusqaanteedii inta ka dhigay inta inaga soo hagaajiyay iyo aqalada aqalka iskuulka imika labada fasal dunsan iyo meherada bidad aan shicib leeyihiinba New Gabiley inuu labada maqsin jingada ka qaaday khasaaraha kale oo magaalada u geystayna ay kamid yihiin riyo jingada ka qaaday meherado u dumiyay iyo taawarkii Telesom iyo deyrkii banka iyo gaari ay lahaayeen shirkadda Xaaji Muuse Company oo iskorogaha u qaaday Guuleed Ali Ibrahim Kacase Sab TV magaalada madaxda gobolka cagaaran ee Gabiley